kusoo dhawow kubadda cagta Tube iyo xog ku saabsan kulanka weyn ee u dhaxeeya Liverpool iyo Tottenham. Mid ka mid ah kulamada toddobaadka ayaa lagu magacaabaa kulankan. Liverpool ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Haddaba maxaa ka cusub labadan kooxood ka hor kulankooda? Tottenham oo gurigeeda joogta waxaa kulanka ka maqnaan doona Dele Alli, kaas oo dhaawac dhanka muruqa ku seegi doona. sidoo kale kabtankooda iyo goolaha xulka France Hugo Lloris ayaa asna la soo warinayaa in dhibaato dhanka dhaawac dartiisa kulanka uu la maqnaan doono, balse Hoon Min Son ayaa la heli karaa, kaas oo South Korea ka caawiyay inay ku guuleystaan abaalmarinta Asian Game ama tartanka Aasiya. Liverpool ciyaaryahankeeda qadka dhexe Adam Lallana ayaa kulankan dhaawac ku seegi kara kadib markii laga reebay ciyaartooyda xulka Ingiriiska ee tartanka UEFA Nations League. Goolhaye Simon Mignolet ayaa asna soo kabasho sameynaya. Tottenham ayaa garoonka Wembley ku soo dhaweyn doonta Liverpool iyadoo la ogaa in kulan 4-1 ku dhamaaday xil ciyaareedkii la soo dhaafay ay ku yeesheen garoonkaasi. Reds waxay u baahan tahay soo kabasho inay sameyso kulankaas. waliba kulankii labaad ee ciyaareen 2 gool ayuu ku dhamaaday. Klopp iyo kooxdiisa sanadkan waxa ay sameynayaan qaab ciyaareed ka duwan kii hore. 4 kulan oo ay ciyaareen waa ay badiyeen. Kulankan waxaa hortaala shaqo adag oo ah inay ka gudbaan kooxda kubadda cagta ee Tottenham, waana mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee Liverpool ay ciyaarayso bishan September. Liverpool waxaa laga adkaaday 4 kulan oo Wembley ku dheeshay tani markii 2 gool ay kaga badiyeen FA Cup-ka semifinalkiisa kooxda Everton 2012. Mohamed Salah 5 gool ayuu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham 7 kulan ee uu ka hor yimid kooxdan. Fadlan ciyaartan qaybta hoose ee commentiga ayaad ka dhiiban kartaa saadaashaada iyo waxa ay ku dhamaan karto. mahadsanid.